agaasimaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloshe ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda VOA ku sheegay in lacagaha baadda ah ay yihiin dhaqaalaha ugu badan ee xilligan soo gala al-shabaab waxaana uu sheegay inaanay lacagahaasi ka yarayn 150 milyan oo dollar. Haruun Macruuf ayuu uga warramay sababta ay go'aanadan u qaateen. Haruun waa mahadsantahay sababta keenay dabcan waxay tahay dagaalkan oo shabaabka lagula jiro iyo kooxaha argagixisada middan soo socday habka lagula dagaalamayana hal waji ahaa oo dhinaca amniga iyo ciidamada iyo xabadaha unbuu ahaa sidaan sheegnay intaas uu ka baaxad weyn dagaalkii hadda waxaa la rabaa in heerar cusub la gasho la ballaariyo dadka baadda shacabka iyo baadda iyo maxaan ku dhahaa cadaadiska iyo wax uga qaadayna la joojiyo marka hadda waxaa keenay dee waxaa muuqata baadihii soo kordhiyeen lacagaha ay kasoo galana aad ayay u farabateen dabcan lacagahaasna si joogta waxaa loo waxyeelayaa gacan ay ka geystaan howlgallada iyo sheega ficilada guraacan shacabka ay ku waxyeeleynayaan lacagtaasina horumar iyo adeeg iyo ummad inay wax ugu qabtaan ugama shaqeeyaan ummadday ku baabi'iyaan burburay ku keenaan waa ku kala diraan way ku dilaan dhiigga ummadda Soomaalida ku daadiyaan dabcan dawladaha deriska aan nahay iyo caalamkana khalkhal ayay ku hayaan dhamaankooda iyo danahooda. sidee bay ugu suurta gashaa lacag intaa leeg inay ka arursadaan waddanka gudihiisa? nimankan horta dee dagaalka waa la socotaayo qofka haddii uusan xishoonin ama wax celinaya oo cabsi ilaaha ama xeera ama xugun uusan jirin horta dee wax kasta uu samayn karaa marka dadkay waa si toosay u baadaan si dadbanay u baadaan maxaan ku dhahaa badeecad kasta iyo beer kasta iyo bar kasta oo jirtana waxbay ka qaataan dabcan taasna dee waxaa keenaysa dayac dadka Soomaaliyeed haysta waxaa keenaysa argagax iyo khalkhalgin ay ku hayaan waxaa keenaysa la falgalkii la rabay oo aan la falgali jirin laakiin hadda annaga sidii howlahan aan u bilaabnay ilaa bilowgii May ilaa hadda magaalada Muqdisho howlahoodii dhan way ka yaraadeen qaraxyadii iyo dagaaladii iyo dilalkii ay ku jiri jireen waa ka yaraadeen inay falgalaana way ku adkaatay dacwadaha marka aysan jirin sabab hadda looga cabsado oo baad lagu siiyo oo ammaankii ilaa hadda ay dawladdu ay kafaalo qaaday ama ay ka shaqaynayso waxaan go'aansanay xilligii ay tahay in la jooji lahaa si cadna looga hor imaan lahaa. sidee baad marka ay u hirgelayaan qodobada aad soo saarteen ma haysataan nidaamkii iyo awooddii iyo sharcigii aad ku hirgelin lahaydeen maadaama aan ognahay sharci la dagaalan argagixisoo kale waddanka inaan la ansixin weli baarlamaanka la marin? horta shuruuc uu leeyahay keliya waxay u baahan yihiin fulin iyo hirgelin nin moogna hadda ma jiro in koox argagixisaa in lacag la siiyo sharci darre ay tahay nin moog ma jiro cadowgaaga dhaqaalihiisa in aanan la fasixin ama aysan xalaal ahayn ama aysan suurtagal ahayn in dhiiggiisana xalaaleysid lacagtiisa iyo meelaha uu wax ka helayna aada ogolaatid inaysan hadda xaq ahayn ama aysan logic ahayn waa la fahamsan yahay marka annaga ciidankeena waa noo diyaar ilaa hadda xodan ka haynaa meelaha ay sheegeen sida lacagta ay u qaadaan dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay soo sheegaan dadka baadda iyo handabaada ku haya annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan ka howlgalno annaga nafteenana waxaan xoojin doonaa awoodeena xog aruurin awoodeena ikhbaaraadka ama maxaan ku dhahaa intelligence-gaan xoojin doonaa insha allahu dabcan ciidamada ammaankana waana la habayn doonaa waa la tayin doonaa si xoog badanna waa u joojin doonaan ama waa u hor istaagi doonaan shacabka Soomaaliyeed in la baado. marka lacagahan ma waxaa loogu diraa aaladan ay adeegsadaan maxaan ku dhaha lacagaha la isu gudbiyo la yidhaahdo electronic transferka mise lacag cadaana lagu siiyaa mise iyadoo alaabooyin kale ah la siiyaa mise dhammaantood? intaas sheegtoo dhan ba isugu jiraan laakiin inta badanna kaashii ku helaan oo dee waxay ugu yeeraan dadka meelaha ay joogaan lamana joojin jirin dadka hadda waxay ka dambeeya waa la joojin doonaa magaaladana waxay ku leeyihiin santaro ay ku aruursadaan electronigana way ku aruursadaan aalad kasta u suurtageli karta lacagta inay ku helaan nimankaas isticmaalaan wax ka xirfeedan ma jiraan inay isticmaalaan. maxaa horey marka tallaabadan loogu qaadi waayo dadka su-aasha isweydiinayaan waxa weeyaan haddii arrinta u sahlan tahay maxaa horey loogu samayn waayo? wax saalana ma jiraan dabcan xaajo kastana xilligeeday falantaa annaga hadda baan joognaa shala ma joogin tiimka hadda joogana uu go'aansaday hadda inaan indhaha laga sii qabsan karin. dhaqaalaha ugu badan hadda halkeebu kasoo gala al-shabaab waxaan ku weydiinayaa awal waxaa la dhihi jiray dhaqaalaha ugu badan wuxuu kasoo galaa dhoofinta dhuxusha dhuxul weli ma dhoofiyaan halkeebu kasoo galaa dhaqaalaha ugu badan? dhaqaalaha ugu badan waxay kasoo galaan baadda iyo canshuurta ay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ii sheeg
adeegyada Soomaaliyeed ay saaraan oo yani meel wax ka baqdaan lama arko dukaan kasta iyo shirkad kasta iyo neef kasta oo la gadaayo iyo gaadiid kasta jid maraayo oo meel ay taagihiin mar canshuur ka qaadaan meel ay wax uga baqdaan nimankaas ma jirto marka way bartilmaameedsan doonaan haddii ganacsatadu ay diidaan dabcan sidaas sheegtay telefoonadii kusoo wacayaan haddii ay diidaan oo ay bartilmaameysadaan iyagii ganacsigooda la qarxiyo maxaa xiga see dadkan ammaankooda lagu sugi kara horta dadkan ammaankooda haddaba waa la sugayaa oo qaraxyadii sidii owl u dhici jireen uma dhacaan waa la socotaan sida howlgalladan xasilinta caasimada iyo xakamaynta hubka loo bilaabay qaraxyadii way yaraadeen dilalkii way yaraadeen umana sahlana in hadda sida doona wax ka yeelaan dadka waxaa laga rabaa marka meesha waxaan ka codsanaynaa qofkii nimankaas baad warsado si toos annagana nagu sheegaan annagana waa ka jawaabaynaa waana ka hor istaagaynaa inay shacabka handadaan annaga nafteena istikhbaaraadkeena intelligencegeena waa xoojin doonaa oo hadda meelna uma naano network kastoo lacag aruuriya iyo network kastoo wax dila iyo network kastoo amniyaada iyo network kasta oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ummaddan in wax lagu yeeleel rabana waa wax kastoon ka gaarna annaga waa samayn doonaa wada shaqaynta ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeedna waa u baahannahay dabcan intii oo maalin ilaahay keena la baadi lahaa waxaa loo qaatay cidda baadaysa inay dawladda tusaan dawladduna waa u diyaar mana hakala doonto mana ka gaabin doonto inay howlaheeda iyo waajibaadkeeda ammaanka ay fuliso cawaaqibka ka imanaya muxuu yahay haddii ganacsatadu ama dad kale oo ganacsatada ama ganacsada qaarkoodba ay sii wadaan ama cabsi ha u geyso ama wax kaleba ha u geeye inay dhaqaale siiyaan shabaab cawaaqib ka imaan doona kow horta tallaabo sharci waafaqsanaa laga qaadi doonaa qofkaasna waxaa loo aqoonsan doonaa qof dee si kasa ugu hogaansamo awaamirta al-shabaab raallina ka ah waxay wadaan